waa very important inaan dadkeena u sheegno there is no time limit on the Isaaq genocide. Barwaaqo waxaan dhana sheegaysay maba oranaysidba maybe waxaa jira a document la soo saaray ma aqaani adaad aragtay barwaaqo waxay yidhaahdeen horta genocide-ka yaa sameeya genocide yacni adaadba awood leedahay dad ku dilaysid maxaad ugu kordhinaysaa gumaad yacni humiliation waxa la gartay marka waxay isu barbardhigeen Hitler iyo Siyaad Bare iyo kuwii Hutuda waxa meesha ka muuqda markaas waxay oranayaan waa inferiority complex qof aduu nacab yahay dadku rabo inuu gumaado aday ku jirto some kind of inferiority complex yacni wuxuu rabaa dhimashada yacni he needs to humiliate them so genocide-ka waa a campaign of humiliation waa hadda waxaa tiri okay ma naceeb unuu qabay Siyaad Bare dadkan waa maya waayo waxaanu garanay ka hor inay rabeen meeshan oo anaka dhan ay rabeen inay naga tirtiraan meeshan nimankii southka waxaa jira another document aan arkay waxay yidhaahdeen kuwan markaan anaku meesha tagnay waxay yidhaahdeen uma ogolaanayno any institutions yacni aaday u naceen nimankan kale oo markaas waqooyi la ku sheegayay oo yimi southka in some ways they felt some kind of inferiority waxay yidhaahdeen even power ma siino ugu sasareeya waxaanu rabnaa iyaka inaan dismantle inaan ku samayno their healthcare system education system their trade networks marka cunfigan beri hore uu ku abuurmay dadka waxaa dhici karta historygoodii xumaa waxay ka xumaadeen sababta kuwan u dhibaateyn waayo waa maxay sababta anaka lanoo gumaystay maybe this is just a theory laakiin waa inferiority complex oo sababtay ina dadkan sidan humiliation aad ku samaysid marka waxaa documentkaas meel kale waxaan ka akhristay mise waa YouTube video ninkii la oran jiray Goebbels kii Hitler propagandiskiisa ugu weynaa waxaa la yidhi gabadh yuhuud uu beri raba inuu guursado marka ma aha naceeb ay u qabaan waa just some kind of inferiority complex marka power lahaatid wax rabta inaad ka jartid dadkaas meeshay maris gaarsiiyeen Hitlergana sheegayo markuu joogay Vienna wuxuu ahaa painter dadka waxyaabahan paint gareeya ninkii wax ka iibsan jiray wuxuu ahaa nin yuhuuda waayo he was not such a good painter he was a failure laakiin his loyal customers yuhuudu ahaa la oran jiray Samuel Morgensen macnihiisa yuhuuda lacag u lahaa he was able to buy Hitler's painting so what arkaysa waa dad someone who feels humiliated to begin with and then he's looking for a scapegoat so these people felt humiliated and who are the scapegoats waxa weeyaan qabiilkan Isaaqa kaas kaliya ma oran karno I think the second thing dhulkeena ay rabaan yacni dhulkeenan u aragtay lacagta ugu badneed wuxuu ka yimi meeshan la yiraahdo Somaliland especially Berbera port yacni Berbera meeshan la yiraahdo I think we have yani genocide kan inaan ka daba tagno waad ogtahay barwaaqo dadka umaad sheegin anaku maxaanu noqon lahayn a protected status umaad sheegin waad ka ilowday milishiyaan looma ogolaan lahayn inay meelahaas imaadaan marka dadkan waxan way garanayaan waxay u diidayaan inaan Isaaq genocide iyo waxan inaan ka hadalno waayo Isaaqiya noqonaya protected status haddana waxaad iska difaacaysa another genocide inuu meesha ka dhaco Canada la xalin waayo mid kale ka dhaci doona meesha